يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا طيبة طيبة you're the cure and the healing we miss you so much and hope to see you we hope to see you لما صار المركب نساني صاروا الدمع ما جفاني أخذوا قلبي ما جناني يا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلان توعنا ونكسن داود يا الميرتدوات شوكتان kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xiliyadan oo kale idinka yimaada studio-giisa magaalada Hargeysa. barnaamijka waxbarashada ee TV-ga ayaa waxaanu ku eegnaa isla markaana waxaanu ugu kurgalaa iskuulada Somaliland kuwa bareefadka iyo kuwa dawliga haday yihiin jaamacadaha dalka iyo haday yihiin jaamacadaha dawladda kuwa bareefadka iyo kuwa kasta oo isleenahay waxa ay waxbarashada Somaliland ugu jiraan kaalin muhiim ah. maanta waxaanu ku soo eegi doonaa isla markaana waxaanu ku soo qaadan doonaa iskuulka Ilays Primary School Branch 4 Egas Imam Shafi'i oo isagoo ah iskuul hoose dhexe oo ku yaala xaafadda calaamadaha ee magaalada Hargeysa. iskuulkan ayaa waxaanu wareys la yeelan doonaa daawadayaal maamulaha guud ee iskuulkaasi Ilays Primary School Branch 4 Egas Imam Shafi'i Usman Aadan Cilmi. bal waxaan ku soo dhaweyn doonaa daawadayaal si uu warbixin nooga siiyo aasaaskii iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dugsigan Ilays. telefishinka ku soo dhawow habeen wanaagsan marka hore maamule. mahadsantiin marka ugu horeysa aad baan idin salaamayaa TV-ga Bulsho TV. mar labaad haddaan ka warramo iskuulkan Imam Shafi'i markii hore la oran jiray in markay ku beeray baahda Ilays. iskuulada Ilays ku beeray bil hore ayaa la aasaasay oo fog 1998 ayaa la aasaasay. marka ugu horeysa waxa lagu bilaabay KG ayuu iskuulku ku bilaabay. KG caruur yar ama iskuulka loo yaqaano barbaarinta caruurta ayuu ku bilaabay. runtii ilaahay ka abaal mariyo hay'adda masno ida bilowday si fiican baan markii iskuulka ama KG-ga loola jaan qaaday. dadkuna xilligaasi waa ay u baahnaayeen oo dadku baahi bay u qabeen. waxaanu ku bilaabay xilligaasi guri ayuu ku bilaabay oo waqtigaas waxa iska ahayd bilow ay iska ahayd wadanku waa sawla socotaan ilaa 5 fasal meelahaas ayuu ahaa. waa loo dhabar adeegay runtii oo waa loo dadaalay oo waa loo sabray. bulshadii magaalada iyo iskuulkii way isla jaan qaadeen. muddo ayuu sidaa ku soo socday ilaa aan oran karo maxaan ku raadayay ilaa 5 sanadood oo kale amba waxaan u jeedaa ilaa 2 sanadood ayuu meeshaas ku socday. taariikhdu marka ahayd 2000 ayaa iskuulkii laba kaclayn lagu sameeyay oo la ballaariyay. kabacdi markii la arkay baahida iyo dadku sida ay u respond gareeyeen ay uga jawaabeen iskuulka loo sameeyay ee KG-daha yeerkii marka wax baranayeen ay roonaadeen ay u baahdeen inay primary ay galaan. kabacdi ayaa wax la sameeyay iskuulkii primary ayaa laga dhigay from 1 to class 8 ayaa marka uu isu bedelay ilaa class-ka 8aad oo dugsi dhexe ah isu bedelay. muddo ayuu sidaa ahaa oo uu soconayay. sidaas deetana mar labaad bay dadkii la jaan qaadeen oo si fiican ay uga heleen. si fiican baana iskuulka runtii macallimiintii iyo ardaydii iyo dadweynihii ku xidhnaa iyo waalidkiiba ay isla jaan qaadeen. iskuulka magaciisii iyo magaranaysa ayaa sare u kacay sumcadiisii. meelo badan baa runtii iskuulkii laga bartay. dabeetana markii taariikhda haddana ahayd 2000 marka berigaasi wuxuu manhajku ahaa luqadda carabiga ayuu ahaa xilliga manhajka lagu dhigay waa gartay luqadda carabiga ayuu ku baxayay sida iskuulo badan ba marka dambe ay ahaayeen oo wadanka
laakiinse 2005 ay haddana isbedel iskuulkii oo sameeyay isbedelka markan uu sameeyay waxa xagga manhajka oo laga guuray Carabidii oo loo guuray English curriculum loo guuray oo laga dhigay English laga dhigay manhajkii oo lagu xidhmay manhajka guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay leedahay ayaa markaasi lala jaan qaaday iyadoo looga barsay iskuulka hadba inuu isbedelada oo la socdo oo la jaan qaado oo korba isbedel cusub iyo shaar cusub oo xidho markan shaarka xidhay wuxuu ahaa inuu noqdo iskuul manhajkiisa ku baxo English markan manhajkii waxbarashada wasaaradda waxbarashada ayuu la jaan qaaday luqadda Ingiriisiga ku baxaysay waa gartay ayagoo la jaan qaaday saad sheegtayba wasaaradda waxbarashada toos ugu list gareysay yahay iskuulada wasaaradda waxbarashada hoos yimaada ayuu kamid yahay imtixaanka guud ee wasaaradda waxbarashada ee wadanku leeyahay ay namado ama xamjida ardayda fasalka 6 ka baxaysa ay la fadhiistaan sidaas markaana oo iskuulkii isu bedelay maamula marxalado kala duwan bay kulay waxbarashada Soomaaliland waqtigan soo martay oo marba iskuulkan waxaad ka dhawaajisay in la aasaasay 1998 wuxuu noqonayaa iskuuladii ugu horeeyay ee kulay waqtigaasi laga aasaaso iskuulada primary-ga ah hoose dhexe dalka Soomaaliland kulay marxalado badan bay waxbarashada Soomaaliland soo bartay maanta waxaan oran karnaa halkii ugu fiicnaa baynu maraynaa waxaad ka arkaysaa dhalinyaradii iyo aqoontii iyo macallimiintii sida ardayda wax u barayaan iyo waxa ka muuqda maxaad isleedahay wad ku soo kordhiseen xagga aqoonta ama waxbarashada Soomaaliland marka laga hadlayo iskuulada kulay Ilays waa farabadan yihiin qaybtaadan branch 4 ee Imaam Shaafici Ilays waxaan ku soo kordhinay runtii isbedel baan ku soo kordhinay iyo horumar baan ku soo kordhinay waxaan ku soo kordhinay arday fiican oo runtii aqoon iyo edaab iyo akhlaaq bale ayaan ku soo kordhinay higsi iyo magaranaysa meel ay u jeedaan leh runtiina waxaanu aad barashada u saarnaa inaanu akhlaaqdooda iyo edaabtoodaba aanu hagaajino hada jalaal waxaad moodaa in ay waxbarashada iyo edaabtu ay marka qaar kood kala leexdaan oo ay laba wado u kala socdaan marka anagu iskuulkayeen Imaam Shaafici markii hore la oran jiray magaciisa ka muuqata imakana Ilays noqday waxaanu isku daynaa ardayda ku magaranaysa ku dhaarad garaynaa in ay waxbarashada iyo edaabta ay isku dhafaan ay ku dadaalaan marka ardayda noo baxday noo qalin jabisay aad bay magacoodu magac leeyihiin xagga edaabtooda iyo dhaqankoodaba marka waxaan hawlgala maamul Asmaan iskuulka waxaa ka hawlgala 13 macallin oo xiisaska bixiya oo iyagoo magaranaysa ardayda wax dhigo classeska qaata saddex maamul ayaa iyaguna jira anagoo maamulihii guuda iyo maamul ku xigeen iyo secretary intaas oo ay hadda tiradu noqonaysa bal aynu kala sheegna hablayn man waxa yihiin iyo tirada guud ee ardayda iskuulkan Ilays Primary Branch 4 and Agas Imaam Shaafici ardaydu waa ilaa 700 oo arday dhiganayaan marka la eego hablaha inamada way isku dhow yihiin wax badan ma kala badana ilaa 300 waa ku dhawaanaya baan isleeyahay hablo marka oo isku dhow yihiin kulay maadooyinka lagu dhigo iskuulada dalka Soomaaliland waa la soconaa imise maado ay qaataan ardaydu maalintii iskuulkan Ilays maadooyinkaasi laakiin maxay kala noqonayaan 7 maado tawa 6 xiisadood baa maalintii la gala ay ardayda u qoran 6 xiisadood baa maalintii ardayda u qoran inay qaataan 7 maado ay guud ahaan ay ardaydu ay dhigtaan marka laga reebo maxaa ku dhacay Quraanka 7 maado ay dhigtaan socialkii bay dhigtaan science-kii bay dhigtaan English-kii bay dhigtaan Soomaaligii bay dhigtaan Carabidii bay dhigtaan tarbiyadii bay dhigtaan masha Allah intaas oo dhanba waa dhigtaan waxay dhigtaan xiisado ciyaaraha bay qaataan iyaguna ay leeyihiin oo u dheer bay leeyihiin intaas oo dhanba way leeyihiin maskaxdii carruurta kulli ciyaartina waa u baahan tahay jimicsigii way u baahan yihiin waxbarashadii mar walba
waxa la doonayaa in kulba xiisad la siiyo marka xiisadaha la qaato waxa kamid ah taa jimicsi oo kale ama waxaanu qaadanaa inta badan xiisada ugu dambaysa rawaxaada badiyaa waanu siinaa marka dambe si ay u masabaxsaan oo iyagoo faraxsan oo magaranaysa ay u rawaxaan ayaanu siinaa dhinaca kalena weegii mar ayaan u saarnaa kubad garoon weyn oo masalla ah ayaan tagnaa iska ciyaaraan oo leenahay intaan bas ku qaadno gaari ku qaadno u kareeno dariiskii halkan u yaala leeyihiin laba kubadood baa halkan u yaala ciyaar kala duwan baan ciyaarsinaa xitaa ilaa olympiga barnaamijkan waa barnaamij waxbarashada oo aan ku eegno bal hadda doorka waxbarashada Soomaaliland iyo siyaabaha ay uga socoto iskuulada dalka Soomaaliland waxbarashadu sida ardayda wax loo barayo fariin maamule ahaan maamulihii Cusmaan Aadan cilmi maamulaha Ileys Primary Branch 4 ayaad maxaad maanta adigoo la hadlaya waalidiintii ardaydii cid kasta adoo fariin u diraya waxbarasho ama aqoon oo leedahay waalidiinta ama ardaydii maxaad maanta halka soo jeedinayd ama wasaaradii waxbarashada ama cid kasta oo waxbarashadii dadka carruurta ubadka danaynaysa maxaad soo jeedin lahayd maamule waxaan soo jeedin lahaa waa runtii su'aal aad u wanaagsan weeyaan fariimaha aan diraya waxa weeyaan horta ardayda iyaga waxaan leeyahay waa inay waxbarashada ay ku dadaalaan waxa lagu kala hormaray adduunku uu ku kala horeeyaa waa waxbarashada sida loo kala waxbarasho badan yahay ee waliba dhalinyarada iyo da'yarta mustaqbalka soo koraysa sida ay waxbarashadu u kala far badan tahay ayaa lagu kala hormaraa ama bulsho kastaaba inteeba waxbaratay percentka waxbaratay sida ay u kala badan yihiin ayay adduunku maanta uu ku kala hormaray waxaan ugu darayaa ardayda laftigooda in ay waxbarashada iyo akhlaaqdu aanay kala maarmin meel kasta joogaan fariinta ardayda iskuulkayga iyo iskuulada kala baan u farayaa in waxbarashada iyo idaabtu aanay kala maarmin marka ardaygu uu dhaqan wanaagsanaado waxaan kaloo ardayga farayaa in uu higsad lahaado oo waxa uu baranayo waxa uu halka u yimi iskuulka u yimi inuu fahmo oo garto haddaanu fahansanin waxa uu halkan yimi waxa iskuulka u yimi horumar ma gaadhayo inuu wuxuun qoro iyo inuu wuxuun akhriyo maahe waa inuu higsan iyo meel uu ku socdo waa inuu lahaadaa arday doonaya inuu anfaco dadkiisa iyo ummadiisa iyo dawladdiisa iyo naftiisa iyo reerkiisa marka laga yimaado anfaca oo ballaadhan inuu noqdo oo waddankeennan maanta halka uu joogo jiilkii dibri soo kacay weeyaane meel wanaagsan inay gaarsiiyaan taasna waxay gaari karaan waxbarashadooda ay adkeeyaan ixtiraam oo ay lahaadaan macallimiintooda oo ay adeecaan waalidkooda oo ay adeecaan ardaygu haddii aanu macallinka adeecin baa la yidhi oo aanu qiimaynin waa wax la soo ogaado la tajribeeyo horumar ma gaadho waxna ma barta bale sidii uu lahaa ninkii abwaanka ahaa ee reer Masar kaada almuallimu an yakuna rasuulan macallinku wuxuu ku dhawaaday inuu rasuul ba noqdo yani sidoo ixtiraamku mid yahay rasuul waxa loo leeyahay waa qof risaalad buu xambaarsan yahay halkan waxaan u joognaa waa inaanu ummadda hal baro waxbaan xambaarsanay fikrad baan xambaarsanay si fiican ay u qaato taawiyana macallinku waxa uu leeyahay ixtiraam badan in la siiyo oo ubadka yar wax barayo waxa la soo karaa macallinku ma walaha cadaab qabri marka la eego la qiimeeyo waayo carruurteena iyo reed ubadkeena iyo maanta aan waxba garaneyn ayuu soo gaarsiinayaa jiilkan aragna ama halkan aragna aqoonteena aragnay daawadayaal kaas waxa maxaa ku dar lahayd maamul inta aad raaliya waxaan raacin lahaa waalidka waxaan leeyahay waa inay la socdaan ardaydooda oo ay ka warhayaan anagu haddaan madrasadan Ileys Primary Branch 4 iyo shafeec oran jiray waxaan jeclay waalidku inuu nala tafaaculo oo communicate wanaagsan la sameeyo intuu nagu soo tuuro inaanu nagaga tagin ardaygii ogaado la socdo oo ribad garayo oo halka uu marayo oo la socdo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo waalidka ayaa waalidka walaalo hada jalanta waa laga cabtaa waalidka Soomaalida waa laga cabtaa in dhaqanka ay bedelaan akhlaaqdana ay ilmahooda uga shaqeeyaan oo iyaguna ay la socdaan marka la wada shaqeeyo ayuu ilmihii meel wanaagsan u gaari karaa xagga dawladda iyo wasaaradda waxbarashada dayaga waxa leeyahay waa inay la socdaan ardaydooda iyo iskuuladooda oo dhan ko private-ka ah ee ku xiran iyo kuwa kaleba waa inay la wada socdaan ardayga meel wanaagsan gaara ardayga wanaagsan meel fiican gaaro tan tobka sanadkan waanu ku jirnay iyo tii horena annagaba ahaynba ubankaba ahaynba iskuulada oo dhan primary-ga magarasa wadanka halkan waa tan tobkii waanu ku jiray marka ardayga wanaagsan meel fiican soo dawladda waxa leeyahay dawladdeedii dawladda naga horeysa dhiirigelisa oo waxbarashadiisa magarasa ay la socotaa hadii scholarship ka tayo iyo hadii kaleba fariintan wasaaradda waxbarashada gudbinayaan waa taasi wayna dhiirigeliyaan oo manhajkii wixii wax naga la socdaan beego hore dawladdu
wasaaraddu manhajyada way bixin jirto ardayda aad bay u dhiiri karin jirtay taasna wasaaradda waxbarashada waxaan leenahay xilkiina aad ula socdo hawshina guta kulli waxaan odhan lahayn barnaamijku waxaanu ku soo dhaweyn doonaa barnaamijka Fariikamo Qodna waa xilli hore saacada waxaan ku qiyaasay 7 aroornimo ardaydii marka safkii bay ku jiraan waxaan ku soo dhaweyn doonaa bal hadda ardaydu sida saaka safka xilliga hore ugu jiraan iyo sida ay ardaydu waliba qaar kamid ay warbixin inoogu siin doonaan siyaabaha ay wax uga bartaan iskuulkan Ilays primary school branch 4 Imam Shafici waa ku soo dhaweyn doonaa ardaydii oo nooga warbixinaysa iyagoo safaf dhaadheer ku jira ilaa macallimiinta oo sharaxaysa dadka oo soo gudbin doonaa qolooyinkii xagga basaska inta badan basaska waxa la yiraahdaa dadku waxa iska wada waa dhalinyaro oo dhalinyaradaasi mas'uuliyadoodu ma dhamaystirno niman dhalinyaro basaska iska wata ma kula xisaabtantaan inay nimankaasi ilaaliyaan oo ubadkii aanay meel wada ay ku daadijinin markay basaska raacaan ardaydii maamulay aad iyo aad baan la xisaabtanaa aad iyo aad baan uga horreynaa waxa noo qaabilsan annaga xitaa macallin dhammaan si special aan ugu xil saarayba arrinta ilaaliyo baska xilligu iimanayo arday kasta ku dhigayo ardaydu uu sido iyo report walba si ninkii hawshiisa ka soo bixi waayay baskana xitaa ganaax ayaanu saaraayo waxa leenahay xeer iyo system aan kula shaqeeyo ku jiraan haddana waxa uu rag badan fudud u badan yihiin waxana waa ubadkii iyo tacabkii ummadda Soomaaliland dhalinyarada iyo ubaxii la soo kacayo in xil weyn la iska saaraa waa muhiim marka arrintaas kula xisaabtan waxay badan yihiin anaga niman odayaal badan yihiin oo aan soo xulaa niman oday ahayno aan ka soo shaqeynay wax badan oo dhibano Allahu diro way dhalinyarada yar dambe way idaan kala baxaynin fakrasa qeyb muslimiin waxna dawaa ubad wax loo baahay cid lagu aamini karo ayaa loo baahay fishan kayaga inta waxaan kugu darayaa fishan ayaan anagu leenahay iskuulkayga hadii lagu korreeyahay fishan yani higset fishkayga waxa weeyaan in arday isu dhammaystiran oo simiisaaman inaanu soo saarno oo aakhiradiisa iyo adduunka labadiiba تيسمي سامي كلا دين أكليون أنا شرسوا هدوا الدنيا دو كلهم شرسوا ما قرأ صافينا الماديا يروحيا باير دستان علمي إدابتي يسمي سامي يوده هدانو إداب لحين علمي سدادو كود لي يابا ووضع كي هدو أرض يحن نقدو غوري نوصل قطوي نقو بابيو أو نقدو نود كيس بابينو يو دقال سكية على ذي نقو هريا تقوى مشكلة مركا أرضي مستقبل أنا ما دحد مستقبلك كانوا كسر نحب حياة مدحينها هي وسير كارتين مكان الحلبرية بركة كل وريق لها إن أي هذا لو كوري دنت إن أي دنت جود هي دنت جاركا أرضي سوا فيش هيك واقع هذه أدباد وهذا أيوم هالسنة هاي معمولها جود عثمان آدم علمي داوديال إن ورياش التلفزيون كبولشة يا حلي هو روح عن قاعدني إسلام كان روح عن باقني ساعة حلي روح كتر بعمي إن هاي لحدي بركي الصبح نما حلي قاسي أو أرضيدو أي هبلاي إنما أي كتيران صفف دادير ardaydaasi oo isku jira ardayda iskuulada galaasyada aan idhaahdo ee dhirka ilaa keejiyada yar yar galaas waliba waqtigaasi waa ku dhamaa halkaasina waxa ribooda iyo warbixin lagu siiyay qaar kamid ah ardaydii oo warbixin lagu siinaya iyagoo waqtigaasi safaf dhaadheer ku jira subaxa hore oo u taagan si adaab leh ayaan daawadayaal bal hadayna yar daawan doonaa iyadoo aan ugu sii gudbi doono isla markaana aan idin soo gudbin doono markay ardaydaasi safka ku jirta ay warbixintayna siiyaan marka dambana aan u sii gudbi doono macallimiintii iyo ardaydii oo ku jira galaasyadii oo iyagu wax baranaya waxbarashadii waqtigan ee maalinimo iyo bal hadda casharada ay qaadanayaan iyo sida uu macallinku ugu sharaxayo ama casharada uu siinayo waqtigaasi ardayda iyo waliba sida ay ardaydu casharkaasi uu macallinku siinayo ay u fahmeen dhamaantii waxaan idin leenahay daawasho wacan bulsha TV kaasoo ah TV aad loo daawado kana qayb qaata horumarinta iyo waxa weeyaan wacyigelinta bulshada ujeedooyinka ay noo soo booqdeen waxaa ka mid ah in sidii xog wanaagsan looga heli lahaa nidaamka waxbarasho iyo dugsiga qaabka iyo asluubtiisa ugu fiican tahay ee bulshada reer Somaliland guud ahaan gaar ahaan Hargeysa say noo sheegeen dugsigani waxa uu ka mid yahay dugsiyada ay maamusho hay'adda Masno Foundation hay'adaas oo ah mid maxalli ah taasoo iskuulo fara badan oo magaalada ku yaala mas'uulka ardayda halkan
biligooda idiga muuqdo ee sida nidaamsan habaysan ee waxa weeyaan asluubta ardaynimo ku dheehan u taagan waxa ay yihiin jiilka iyo mustaqbalka beritoole kuwaas oo waxa weeyaan aynu u tababarayno sidii muayeen hoggaanka dalka iyaga oo ku dhisan caqiido wanaagsan tii islaamka asluub iyo ixtiraam iyo dhaqan wanaagsan wadananimo iyo wadan jacayl taas oo keeni karta haddii la helo arday u tababaran kuna tababaran naftoodu dhammaan asluubta aynu soo sheegnay ee u horayso wadanimadu ay ka sii horayn lahayd nidaam saxa oo islaamnimo iyo caqiido wanaagsan taas oo waxa weeyaan ka hortegaysa fikirada qaldan ee la aaminsiiyo sida wakhtigan xaadirka aan joogno dhalinta wax baranaysa taas oo maskaxdooda laga xado isla markaana la aaminsiiyo fikrado qaldan oo sharciga islaamka baalmarsan oo lunsan runtii ardayda halkan la isugu keenay marka dhammaan laga dhiso asluubta iyo nidaamka diimeed iyo kan habdhaqanba intaba waxay horseedaysaa in la helo arday ka madhan inuu isqarxiyo arday ka madhan fikir qaldan inuu aamino kaasoo ah in ummadda islaamka la gaalaysiiyo diintoodana been laga sheego ama uu ka aamino fikiro qaldan oo diinta islaamka ku jira haddii ardayga intaas laga dhiso waxaa soo baxaya inayn helno dad ku dhisan wadaniyad iyo waxa weeyaan wadan jacayl isla markaana u hoggaansama si toosan ugu hoggaansama nidaamka iyo shuruucda dalka u dejisan iyagoo oo aan ku kici karin wax fawdo ah oo ka hor imanaya nabadgelyada dalka iyo wixii marba ummaddu ay ku heshiiso ee u yaalla dugsigan sidaad arkaysaan waxa uu ka kooban yahay dugsi hoose dhexe iyo ardayda galaasyada hoose ee waxa weeyaan nersariga kuwaas oo iyagana lagu soo tababarayo sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen jiilka wax baranaya isla markaana hadafkooda u dambeeya ay u gaari lahaayeen ee higsigooda mustaqbaleed ku dheehan ha noqdo inuu gaadho injineer ha noqdo inuu noqdo dhakhtar ha noqdo inuu noqdo siyaasi ha noqdo inuu noqdo sheekh waddanka oo dhan laga yaqaano waxa aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa alle ayaa mahad iska leh marka xigta waxaan u mahadnaqayaa bahda bulsha TV oo ku hadlaya magaca hoggaanka sanadkan ee dugsiga Ilays Branch 4 Imaam Shaafici waxaan warbixin kooban ka bixin doonaa tayada waxbarasho iyo hawlaha dugsiga haddaan tayada waxbarasho ee dugsiga Ilays Branch 4 Imaam Shaafici aan wax ka sheego dugsiga Ilays wuxuu ka mid yahay dugsiyada ugu tacliinta sareeya Soomaaliland marka laga hadlayo dugsiyada hoose dhexe dugsiga Ilays wuxuu kaalin mug leh ka qaataa imtixaanaadka dawladda in 10 arday ee ugu sareeya haddaan iyadana ka hadlo tayada macallimiinta iyo sida ay wax u dhigaan macallimiinta Ilaahay khayr badan hasiiyo wallahi run ahaantii waxay noola dadaalaan si fiican waana macallimiin tababar u leh cilmiga ay gudbinayaan iyo sida ay wax u fahansiinayaan waxaana taa u sii dheer waayo aragnimo iyo tarbiyad ay ardayda baraan maamulaha dugsiga Ilays Branch 4 Imaam Shaafici Ismaan Aadan Cilmi wuxuu ku dadaalay hawlaha dugsiga sidii uu fulin lahaa iyo tiro ku fadhida tarbiyad toosan intaban taaba arday tafadii aad rabtid talada ku darsado intaga Ilays Branch 4 halka waxa iigu eg warbixintii koobneed ee ku saabsanayd tayada waxbarasho iyo hawlaha dugsigeena Ilays Branch 4 Imaam Shaafici waxaan u mahadnaqayaa bulsho mar labaad waxaan u mahadnaqayaa bahda bulsha TV waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan idinkaga tegayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fil anbiyaa wal mursaliin amma ba'd marka koobaad waxa mahad guud iska leh allahayna uumay ee bartasku ka soo ururiyay marka labaad waxaan xaggan mahad uga jeedinayaa bahda bulsha TV oo maanta iskuulkeena soo booqatay iyo xaggan waxaan mahad ku sii xigsiinayaa macallimiintayada iyo waliba maamulkayaga Xismaan Xaaji sharafta leh
haddaan maanta kaga yar hadlo iskuulka Ilays Primary School Branch 4 Imam Shaafici iskuulkani waa iskuul tayo badan leh waa iskuul khibrad macallimiintiisu ay leeyihiin khibrad aad iyo aad u weyn sida ardayda wax lagu dhigi lahaa ardayda oo si fiican wax uga fahantaa macallimiinta dhammaantaasna waxa caddayn kaaga wada ah sanadadii ugu dambeeyay in dugsiga Ilays Primary School Branch 4 Imam Shaafici uu tartanka ardayda ay dharka dugsiyada hoose dhexe u kaalmo ugu horeeya ka galo nisbada ugu badana uu ka qaato dugsiga waxa lagu sameeyaa barnaamijyo kala duwan nashaadaadka iyo kadiskaas oo ardayda ka caawiya in laba galaas sida 8 iyo 7 inta 10 arday iskaga soo qaado oo su'aalo la weydiiyo waxay dhigtaan oo dhan taas oo fududeysa inay revision soo sameeyaan imtixaankuna uu aad iyo aad ugu sii fududaado waxa soo mahadana waxa iskale macallimiinteeda sida fiican wax noo fahansiisa iyo maamulka dugsiga maamule Cismaan Xaaji mar labaad xaqan waxaan uga mahadnaqayaa bahda bulsho TV taasoo na soo booqatay waad mahadsantii baan leeyahay xaqana aad looga soo cabiyo bahda bulsho TV fadlan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaa intaas inoogu soo ekaaday waraysigii koobnaa ee aynu ka warbixinaynay qaabka iyo habka ay ardayda dugsigu wax u bartaan iyo in tusaale ahaan ay u noqdaan ardaydani ardayda la mid ah ee dhigata dugsiyada Somaliland guud ahaan gaar ahaanna kuwa ku yaala caasimadda waxaan aad ugu mahadnaqaynaa bulsho TV wagaag macallinka ayaan ku soo dhaweyn doonaa bal hada si uu warbixin inooga siiyo maadada ay xilligan ardaydu ay qaadanayaan ku soo dhaw macallin badmaassantiin dhamaantiinba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa habka fiican ee noogu soo booqateen dhamaantiinba marka labaad maadadan loo yaqaan mathematics runtii waa maadooyinka ugu xasaasisan ee inta badan examska ardaydu ay ku kala baxaan runtii anigu aad baan ugu kalsoonahay in wax la iga fahmo waayo experienced waxaan ku hay hadda yani waxa weeyaan 4 years 4 sano ayaan dhigay runtii waqtiga inta leeg waxaan dhigayna waxay ahayd mathematics runtii marka dariska goobta noogu yaala waxa loo yaqaanaa types of quadrilateralis oo markaasi noocyada afargeeslayaasha types of quadrilateralis afartan baa lagu dhigtaa dugsiga hoose dhexe laakiin mid shanaad baa soo raaca loo yaqaan kit marka afartan waxaan haynaa wax weey rectangle iyo square iyo trapezoid iyo markaasi parallelogram marka waxay these shapes kan waxay yihiin markaasi waa quadrilaterals waxa la yiraahdaa oo wixii afar geeslayaal ama four sided ah afar dhinac hadii warbixin kooban aan idinka siiyo iskuulada Imam Shaafici ee markaasi Ilays Primary School runtii fasalka hadda ku jirtaan waa fasalka 8 runtiina waxa weeyaan fasal aad iyo aad akhlaaqdiisu ay u fiican tahay dhammaan iskuulkuna akhlaaqdiisu way fiican tahay waxaan ku boori gelinayaa ardayda inay ilaaliyaan mar walba xasiloonida iyo akhlaaqda waayo waxa ugu soo horeeya ee wax laga bartaa waxa weeyaan waa akhlaaqda akhlaaq hadii la waayo waxa la waayaa cilmiga oo dhan waana taa maqasheen cilmi bila akhlaaqi waa geed bila midha ayuu la mid yahay sidaas daraadeed mar walba ardayda waxaan ku dhiirigeliyaa anigu ama ha ahaadaan kuwa kale ama ha ahaadaan kuwa wax u dhigo mar walba waxa talo iyo tilmaan iyo tusaalaba iga ah in la ilaaliyo laba qodob oo markaasi akhlaaqda in la ilaaliyo marka labaadna in la ilaaliyo nadaafada oo ah waxa idin dhaxeeya adiga iyo ardayga markaasi dibadda jooga ee suuqa marka waa inaad ka duwanaataa ardayow ama ardayday inanta ama inanka suuqa jooga ee subaxii suuqa yacaan u kalaha iyo adigu gan wax baranaya waa ina kala duwanaataan marka hadii la yiraahdo dhamaantiin waan idin mahad celinaya insha Allah waxaan idin rajaynayaa khayr dhamaantiin aad ayuu u mahadsan yahay macallinku sida fiican ee uu noogu sharaxayay maadada ay waqtigan qaadanayaan iyo sida ay ardaydu waqtigan waxbarashadoodii aqoontoodii iyo waliba aan raahdo tarbiyadooda iyo edabtooda ay tahay aad baan kaaga mahadnaqaynaa insha Allah macallin ubadka aad ku tabcaysaan wax baraysaana ilaahay ajar iyo xasanaad fara badan hay'ad ka siiyo waa idin soo ducaynaa insha Allah bidnillaahi ta'ala
warna loogu soo diray maaseejka casriga ee xaakada nin magaciisa la yidhaahdo itusoo taabsii oo la tahriibiyey sharabaadgeed ayeeyo shuul ciir gadhoole iyo weliba ayeeyo gambogeela warba oo xalay maash wada ciyaaray taasoo ayeeyo shuul ciir gadhoole lahayd wallaahi inaan tuu laba siiroo kaaga tegin halkay ayeeyo gambogeela warfa adeegsanaysay dhirbaaxada nooca daanka qalloocisa iyo feedhka nooca bariiska misa ayeeyo gambogeela warfa ayaa ugu ciyaaraysay baarsinoola dhiida ayeeyo shuul ciir gadhoole ayaa iyaduna sidoo kale kooxda Real Madrid goolaha ugu jirtay wafti madow oo naga soo ay hogaaminaysa caasho maradheer ayaa ku soo degay garoonka ay ku soo socon waftigaas oo ay sidee diyaarad la yiraahdo wax walba dajiyay Airways xalay toole 66kii ayaa uu taliyo jinac qarmuuna uu noo sheegay in Faarax Balay lagu xukumay kulli wada xabsi kadib markii uu aabihii ugu labisay road light digsi suugaana u barkiyay magaalada cusub ee uu sameeyay injineer qasabada duufka ee ay magac bixinteeda isku laayeen rectangle iyo triangle ayaa uu injineer Fortansor duwaabin ugu sameeyay bisataarkayaga ayaa la sheegay in ay sirarteedii ku baqtiday 30 sano ka hor bisadaas markii la baaray waxa laga helay cudurka dawamalihi injineer Durmus iyo Dr. Dhinacba maqan ayaa la arkay iyagoo malqacad kaga talaabay suudiga ku yaala xaafadda maseexato ina safanta ay dilaacday ayaa ku cashay ayaa saaka ku quraacday jiirkaas oo magaciisa la yiraahdo Toore Taclamuuna aadan madrasa iyo Faarax Qaroon oo conversation wada qaadanayay ayaan ku aragnay geedka maxarasaafka kaas oo aadan madrasa lahaa khudilaa xaqayga halka uu Faarax Qaroon lahaa afkaaga yaciisho fildan badana canfaruura wasiirka xanaanada cobleesha taageerada oo yiri walaalay wax soo dabaylo siyaasada anagu walaalay waxaan u nahay dad ku nool badan bayo waxaan u hooyanaa dhagaxaan wada walaalayaal iyo walaalay waxaan idiga codsanaa wixii tabuucada nagu soo dirtaan 413 oo macalaafi farax baynus madana xasaabiso loo ciisaasha magaalada ka saaray oo kaga soo haray saxara kadib markii ciisaashi tashadeen ay yiraahdeen inaan soo qaadanaa kadib waxay soo qaateen baangado tooriyo birqaabeed daawayaal iyo waliba gargaraxamari kadib waxay noqdeen misaa waxay arkeen kintaab soo dhaw la cadeynaya ciisayaashii ayaa dib u jeereeriyey kadib habeennimadii ayaa u yimi xor mirqaansan isagoo ku yidhaan meesha maxay diliyey isagoo dhuusa ku jida dhuusaasoo loo yaqaanay fuuxado mudane dhidhi dhagamarta iyo waliba mudane Faarax Balay oo isku leeynaya dhigta kuwaas iska leeyahay dhulbaxad nooca taanka qalloocay waliba feerka nooca gabsada dambadaadiya shirkada magaalada Bullaxaar oo ka soo qayb galeen waraabe doofaar iyo dameer oo lagu qaybinayo boomada kaneecada saalada riyaa iyo suumanka looda iyo waliba sawiraantii mudane jinac qarmuuna iyo waliba gabadhiisa Bilaash Xayto waxaan salaamayaa marka hore waxay mahadlay Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar labaadka waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa TV-gan Bulsha TV oo maanta marti noogu ah xafiiskayaga gaar ahaan dugsiga Elias Primary School Branch 4 Imam Shafi'i haddaan isku dayo waqtiga kooban awgii inaan yar ka taabto dhinaca waxbarashada maadaama dhinaca waxbarashada iyagu ay barnaamijkan u wadaan waxbarashadu horta waa shay muhiim ah qofka bilaadankiina waa wax uu baahan yahay sida daraadeed waxbarashada dugsigu run ahaantii aad bay u sareysaa wayna fiican tahay waxyaabahan badana targetka aan saarno waxa kamid ah waa akhlaaqda ardayga akhlaaq arday marka la helo ayaa waxa la soo saari karaa ilmo akhlaaqiyan iyo cilmiyan labadiiba wada dhisan sida daraadeed hablaha gaar ahaan waxaan u sameeynay hablo eega akhlaaqdooda nadaafadooda dirayskooda sharabaadadooda sidaan iyo cibaadadooda labadaba saan ugu control ardaygu u soo baxo arday ahaado mustaqiima inamadana anaga ku dhex jirna sida daraadeed waxa taa makhraatika ah in bulshada amba gaar ahaan meesha aan ku noolahay libaaxyada xaafada calaamada amba libaaxyadaba ah in aanu ka nahay iskuulaadka badana lagu xanto iskuulka ugu akhlaaqda fiican uguna tayada badan tayadana makhraati wax nooga ah marka aanu la galno imtixaanka dawliga ah badana ardayda waxay noqdaan ardayda ugu sareysa ardayda badana ugu sareysa sanadkii 2013 waxaan hayn ardayda koobaad annaga lahayn
sidaa daraaddeed waxay muujinaysaa waxbarashada iskuulka iyo heerku taagan yahay sanadkanna waanu gallay sanadkanna waxaanu ku lahayn dhowr arday baanu ku lahayn top 10ka sidaa daraaddeed keliya tada ardayga kama dhisno dhinaca waxbarashadu kama dhisnaa labadii dhinacba akhlaaqdii iyo waxbarashada waan ka dhisnaa sidaa daraaddeed maamulo Cismaan aadan cilmi ayaa warka dhameeyay si fiican u sharxay wax badan ka dib tagi maayo taa uu sheegay xagga waalidku badan had iyo gooraale waxa muhiim ah inay communicate ay la sameeyaan ardayga iyo iskuulka dhexdiisa maadaama ardaygii iskuulka intuu jooga anaga ka masuula xaafadda intuu joogana waalidkiiba ka masuula sidaa daraaddeed dhexda inuu gaab ka hirin oo ardaygii oo baskii matarantu waalidkii u diray deetana uu ka haray oo matan iskuulka aanu saako imanba taas waxay imanaysaa linkage baa imanaya amba farqi baa imanaya inuu ardaygii iskuulkii uu ka kala dhex faa'iideysto alxamdulillah waalidiin fara badan way jiraan oo nagu xidhan had iyo goorna yimaada informationka iskuulkana si fiican u haya si fiican uga war haya sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa inta kalena kulli gaabis yar baa jira xagga ayagana waxaan odhan lahaa insha Allah leeyiguna soo yara dadaalaano bal ardaygiisa ay naga wareystaan maadaama arday meesha ku hayno waxbarashadiisa ay naga wareystaan akhlaaqdiisa ay naga wareystaan inta waxaan ku dari lahaa oo kale dhinaca basaska oo kale kulli badanaa dadku way ka yaracawdaan laakiin badanaa anagu maamulu sheegay cid gaaran u hayr garaynaa macallimiin gaara ayaan u hayr garaynaa badanaa nin weyn oo 40 jira amba 40 jira ayuun baan keenaa badanaa basaska noo shaqeeya sidaa daraaddeed waa qofsan soo select garaynay san macallimiinta u soo xulano ayaanu basaska noo soo xulanaa arday uu ka yimaadana uma ogolaano arday uu isagoo taagan ku dhaqaaqana ma ogolaano arday uu ka yimaadana ma ogolaano sidaa daraaddeed waxaan leeyahay bulshada iskuulka ay u dhigato ardayda meesha u dhigato wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa sidaa daraaddeed waxaan filayaa inaan kasii kordhin doono sanad ka dambaysa tayadana aan sii kordhin doono insha Allah ta'ala aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maamula ku-xigeenka Cismaan محمد أحمد waxa uu isna warbixin naga siinayay siyaabaha kala duwan ee iskuulkaasi ay uga socoto waxbarashadu iyo adeegyada waxbarasho ee halkaasi ka jira daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta naga mudan intaasi waxaan ku soo gabagabeyn doonaa habeenkan caawa barnaamijka waxbarashada ee telefishinka Bulsha TV waxaanu maanta ku soo qaadanay sida idinka muuqatay iskuulka Ilays Primary School Egas Ilays Primary School Branch 4 Egas Imam Shafici oo isagu ku yaala xaafadda calaamadaha gaar ahaan koonfurta dhinaca Star dhahdo kamarada iyo film qaadistu waa Saciid Maxamed Cali habeynta editinka iyo isku duwariisna waa Cabdisalaam Cabdirashiid bahdi Ilays iyo bahda Bulsha TV waxaanu idinkaga tagnaa maanta haday tahay maamulihii Cismaan aadan cilmi oo isna warbixintii hore ina siinayay iyo maamulka ku-xigeenka magaca agteeda fadhiyaba dhamaantii waxaanu idinkaga tagnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا